badroolyo fariinban buugga kugu qoraya warqad kugu bilaya badroolyo fariinban buugga kugu qoraya warqad kugu bilaya intay boobayaashiyo malas baratamayaan ha soo bixinayga joog intay boobayaashiyo malas baratamayaan ha soo bixinayga joog. wasaaradda macdanta iyo saliidda dabiiciga ee Itoobiya ayaa sheegtay soo saarista shidaalka deegaanka Soomaalida laga helay in lagu soo gabagabeynayo 3 sano gudahood. agaasimaha waaxda maamulka shaatiyada shidaalka ee wasaaradda Qazale Tadase ayaa sheegtay inay jiraan marxalado dhowr ah oo ka horeeya oo uu shidaalku soo saaristiisu marayo inta aan la isticmaalin ka hor. waxay intaa ku dartay in la qodayo boqolaal ceel oo kale isla markaana la fulinayo mashaariic waaweyn oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo u fududeynaya shidaalka in muddadii loogu talagalay dalku ku soo saaro. sidoo kale deegaanka Soomaalida shidaalka laga helay oo kali ah iyada oo aan lagu ekaanaynin waxaa sidoo kale baarid iyo soo saarisba laga sameeyaa qaybaha kale ee dalka ee shidaalka laga helay. waxayna wasaaradda macdanta bishii Juun ee sanadkan shaaca ka qaaday in kayd shidaal oo aad u badan laga helay deegaanka Soomaalida ee ku yaala bariga dalka Itoobiya waa siday hadalka u dhigeen. ilaa iyo hadda waxaa shidaal laga helay 5 qaybood oo dalka Itoobiya ka mid ah sida Rift Valley, Abiy, Makale, Matama iyo Gambela, balse waxaa markii ugu horeysay shidaal laga soo saaray deegaanka Soomaalida qaybo ka mid ah oo tijaabadii laga sameeyay lagu guuleystay. ceelasha shidaalka ee laga daahfuray ayaa waxa ay ku yaalaan deegaanka Kaali iyo Eelle oo ka tirsan gobolka Qorraxay iyo Shabeelle. xafladda furitaanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo wasiirka macdanta ee dowladda federaalka Itoobiya. warbaahinta dowladda Itoobiya ee lagu magacaabo Fana ayaa mar sii horeysay ka soo xigatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in shacabka dalkiisu uu ugu hambalyeynayo isla markaana maalintii la soo saari doono 450 foosto oo shidaalka ah. shidaalka cayrin ee goobtaasi laga helay ayaa waxaa lagu wadaa in loo safriyo magaalada Addis Ababa iyo qaybaha kale ee dalka Itoobiya si guud ah loogu sifeeyo inta lagu guda jiro tijaabada. Abiy ayaa sheegay inay tahay qasab in xaq iyo sinaan loo qaybsado kheyraadka uu soo saaro dalkiisu. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy ayaa intaa ku daray in kheyraadka la helay uusan noqon doonin mid horseeda khilaaf iyo dagaal sida ka dhacday dalalka qaar, balse waxaa arrintan hubinti la'aan geliyay ururada hubeysan ee dhowaan heshiiska la saxiixday dowladda Itoobiya. dhoofinta shidaalka ayaa lagu wadaa inay bilaabato sanadka 2021. shidaalkani ayaa waxaa lagu wadaa inuu sanooyinka ugu horeeya ka soo galo dalka Itoobiya dhaqaale dhan 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka, balse dhaqaalaha ka soo baxaya ayaa si tartiib ah u kori doona waxaana lagu wadaa inuu gaaro 7 bilyan oo dollar. khubrada ayaa sheegay in kheyraadka dabiiciga ah haddii si xaq ah oo wanaagsan loo isticmaalo uu gacan ka geysan doono isla markaana lacagta Itoobiya qiimaheedu sare u kacayo. waxaa sidoo kale shidaalka laga helay dhulka Soomaalida uu gacan ka geysan karaa in dadka ay helaan fursado shaqo. waxaa jira cabsi dhanka ammaanka ah maadaama ay horey u jireen injineero shidaal ka qodis ka waday deegaanka Soomaalida oo lagu laayay halkaasi. 2007 ayay ahayd markii 11 injineer oo u dhashay dalka Shiinaha ay jabhadda ONLF ku dileen halkaasi, balse gobolka ayaa imika u muuqda mid ammaan ah. arrintan ayaa ku soo hagaagtay xilli jabhadda ONLF oo gobolka Soomaalida ka dagaalantay heshiis la gashay dowladda.
ONLF ayaa dhowr mar digniin u dirtay shirkadaha ku howlan sahaminta shidaalka ee gobolka iyaga oo ku soo celceliyay in loo gacan dhaafay dhulkoodii isla markaana aysan dadka deegaanku wax tashi ah lagala samaynin kheyraadkooda isla markaana aysan aqbalaynin sahaminta oo aysan dadka deegaanku hormuud ka ahayn. laba iyo boqol guyo tagay bayla ka ilaalishaayay badroolyo bil iyo laba iyo boqol guyo tagay bayla ka ilaalishaayay baqaliyo hayalayo inta baxo boosheed warankaaga bacsadaaye baqaliyo hayalayo inta baxo boosheed warankaaga bacsadaaye markaan carabi dhaawacan bartankana shangeed kule midabkuna buluug yahay bahwadaagta Soomaal ballanka ilahaayeen oo madax banaaniya bartankaaga aan suuro markaan carabi dhaawacan bartankana shangeed kule midabkuna buluug yahay bahwadaagta Soomaal ballanka ilahaayeen oo madax banaaniya bartankaaga aan